بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى halkan waxaan ka soo jeedin doonaa tacliiq gaaban oo insha Allah hadii Allah sayidka noo ogolaado aan sameyn doono muhaadaro ama tacliiq cinwaankiisu yahay Maxamed Cabdul Wahaab iyo takfiirkii uu gaaleyn jiray ummadda islaamka bi ajmaciha dhamaanteed. ayaan waxaan bal dib taariikhda aan u fiirinaynaa nimanka la yiraahdo hadda salafiyada la baxay ama wahaabiyada la yiraahdo, yani kutubtoodii kutubu taariikh ayagu ay qorteen ragooda calaamta ay qoreen ayaga sida ay dhigahayaan iyo hal kitaab caawa intaan ku hayna meesha oo kutubtii caqiidada ee Maxamed Cabdihaab kamida inay arintaasi ay tahay arin aan daliil u baahnayn. Maxamed Cabdul Wahaab inuu ummadda islaamka dhammaan asaga iyo intii raacday mooyeen uu gaalo ku xukumay ayaan taariikhda ka aqrinaynaa insha Allah ta'ala. mana aha tacliiqeenu naqdi aan cidna naqdinayna ma aha, laakiin xaq ayaa wuxuu yahay mar walba in la raaco asaga ayaa lagu qowla haboon. sidaa darteed waxaana sabab u ah munaaqasho maalin dhaweed culimo muxuu ahaa Minnesota state la yiraahdo joogta ka dhacday ayaa waxa ku jiray nin qoladan salafiyada ah, ninkaas oo sheegtay Maxamed Cabdul Wahaab iyo madhabkiisu inuu ku dhisnayn takfiir ku dhisnayn. arintaas waxaan dib u fiirinaynaa marka in ay kutubta wahaabiyada takfiirku asal yahay Maxamed Cabdihaab ummadda islaamka waqtigiisa gaaleeyay ilaa yoomina haadan atbaacdiisa ay sidii ku socdaan waxaan ayaga ahayn ay gaalo u yaqaanayaan mushrikiin. ayaan rabnaa marka inaan dib u fiirin insha Allah ta'ala. waxaan soo qaadanaynaa waxaa kamid ah kitaab la yiraahdo Unwaanul Majdi fi Taariikh an-Najd. waxaa qoray nin la oran jiray Uthman bin Bishr an-Najdi al-Hanbali. ninkaas ayaa qoray kitaabkaas wuxuu ka kooban yahay 2 mujallad. bal mujalladka koobaad baan caawa wax yar ka aqrin doonaa insha Allah ta'ala. kitaabku sida aad aragtaan cinwaankiisu waa magaciisa Unwaanul Majdi fi Taariikh an-Najd. ninka aan magaciisa sheegnay maana iskale waana rag aad wahaabiyada taariikhdooda ugu dheereeya. kitaabkaas wuxuu leeyahay ninkaas إن هذا الدين الذي من الله به في آخر هذا الزمان على أهل نجد بعدما كثر فيهم الجهل والضلال والظلم والجور والقتال. دينت إلهي آخر الزمان كان وقت عندما نجداد وكوكا لديستي markii ay ku badatay neejda meesha la yiraahdo jahligii iyo baadidii iyo dulmigii iyo cadaalad darradii iyo dilkii iyo dagaalkii oo fajama'ahumullahu bihi ba'da al-furqa oo ilaahay reer najda diinta Maxamed Cabdul Wahaab uu ku kulmiyay intii ay kala tageen kadib wa azzahum reer najda ilaahay u cizeeyay ba'da dhillah wa aghnahum ilaahay oo hodan ka yeelay ba'da al-ayla faqrigii gadaashi وجعلهم أكيل إخوانا ولالو فأمنت به السبل أي ودوينك نبات قالين وحيية السنن لنوليي سننتي وماتت البدع لماتي بدع دين أي هلكا كل لماتي واستنار توحيد كينا ويفتيمي بعد ما خفي انتو قرصومي او درس او بابا او وزال الشركوش قال لمدينة أيزوشي بعد ما صار في البلاد انتو أسر مري بلاد وغرس أو مغورس لا تلالي ودفعت نيران الظلم لبختيي ظلمي دبكيسي والفتن ورفع لكوريا لمواد الفساد والمحن. فساد كي محندي مادة أصل قادين لكوريا لي ونشر اللفافيي راية الجهاد جهاد كعلن كيسي على أهل الجور أو مسلمين تي أيو العناد. وكان مظهر ذلك وحان صار أنت ظاهري من الله يقول يراد للشيء يكون فيكون الله هسا جهاد كي أرنتا سو صاري بولا سو ظاهري. فبسبب وذلك بسبب وحي أرنتا سكوهر شيء بسبب من شيخ سببتي بركة علمه بركديسي عمد عامتي بركة علمه سبركديسي العبادة أضمد عامتي
وشيد شيخ خاصة كوريا لمنارة شريعة علن محوها منارة دادي في البلاد بلاد إلهي شريعة منارة دادي كوريا لي قدوة الموحدين وصول موحدين توحكي كداين هيينها وبقية العلماء علماء بقية دودي سو هريها المجتهدين علماء مجتهدين انت كيك هريها واسنا ناصر سنة سيد المرسلين مرسلين الرسول صلى الله عليه وسلم سيد كودي محمد سنة سكي وقرقاريها شيخ مشايخنا شيخ مشايخنا مشايخنا هذا الشيخ يديها المتقدمين يا هريس الشيخ الأجل شيخ ويناها والكهف قد كيها الأضل يا هركب بنا محمد بن عبد الوهاب نكاسي جوجشا أيو أسمي محمد عبد الوهاب مركو ربينه تاريخ زكاه هذا فآواه محمد عبد الوهاب وحاسور دوية أصنع تاجري من بقر جعل الله يلي عز الإسلام كعز جيس على يديه لبدي سكعمود الإسلام كعز جيس أسجل الله محمد الله صاري وجاد دقي أو هري بنفسه نفتي وما لديه وحي أكتس أهابة هري أو ولم يخشى أن كبغ لومة اللائمين قوة دقال كوضة ولا كيد الأعداء المحاربين محمد بن سعود وبنوه محمد بن سعود يا عرور تيسي ومن ساعدهم على ذلك وذووه مركا ننكاس وحو كتابك كله يهي صفحة 24 إن بدن بيو عشقدي محوها نمكا تاريخ ضوضنا وخاقر محمد عبد الوهاب محمد بن سعود وحاكو بشاريستي بولاهي لبضان محوها حرمين كشرفت لها مركي كالزوليان قال لمدي الدقيانكي يا قبور عابدكي ننكاس وحو لا يهي ننكا اللي يدادو وانا كان هوري سو شاقنايا عثمان بن بشر النجدي waxay u socotay buulaahi maxamed cabdihaab iyo maxamed bin sacuud madaxdoodii ama cumaashoodii arlada dhan bay u socotay carab iyo cajam iyo ciraaq iyo shaam iyo yaman iyo xijaazba halkaasuu waday marka wuxuu yidhi oo uu sheegay wasaarad cumaaluhum baa socotay madaxdoodii gubernatoriyaashoodii ilaa jamiici alcarab carab dhammaanteed fi shaami walciraaq walyaman wa aqsi alxijaaz عرب تاسو شام كسوغان أما عراق أما يمن أما أقصى الحجاز إلى ما وراء الينبع إيا وحي كسي دنبيا ينبع با دون مصر انت كسوكس إلى عدن وما دون البصرة انت بصرة كسوكس والبحرين وأقصى عمان وما حوض عليه هذه الجزيرة جزيرة العرب ولن سدا يوقف سدا بو احتلالين أي ولاي أي عماشود وكلا سعودي ومن العرباني فيقبضون شقاله هذا يمدح هذا وحي قادي جيرين منهم ضدك الزكاة بالكمال أيضا رميسترا ويضربون ويقراع جرين من تعدى قفك حد قد بقى ما تخلف كهر عن الجهاد جهاد كمسلمين تلقوا قادة هي أيقا عنهين وضدك كالا وحيو يقانا المشركين أيقنا مسلمين تي مركا جهاد كلقوا قادة هي إسلام كأيقا قالوا يقانان نكي كتا أخرانا وعقاب الجرين بوري ويأخذون من ماله مال كيسا وحكا قادة جرين أن نكالا عقوبة جناح بك قادة جرين نك الجهاد ككهر وهدموا ويدميين القباب وحي قبضها والمواضع الشركية وصدوا لقيا أو الله واحد قرانيسا وحي قبورتي مسلمين تا أيا كانوا حتى صحابة إن الدمية ما يعدين دونا ماشي كعدين دونا في تلك الأقدار جهوين كأنصار شغني وشام وعراق ويمن وحجاز وممنوعها عدن وبحرين وبصرة وعمان الله وحي قبري كوي لينا قبضها أنا والد بيهالك وعمروا المساجد مساجد ويعمرين بالصلوات والدروس والأذكار وكسروا الصنم يجب ينبور إنك وصول لقاء ذا الخلاصة صنم كذا الخلاصة اللي أرنجري الرسول كدق عليه الصلاة والسلام تاريخ الإسلام لقوم هايو أن وهابية كأهن صنم كي رسولك الشيقي وحعابد لما شاقل لكن نكاني ساسو أسوقوا لي كتابك ساسو كوخري أو وحوري صنم كذا الخلاصة اللي أرنجري موها أي عابدين بو أي جبيين بو محمد بن سعود محمد عبد الوهاب في طبالة ماشلية بعدما ضربت عليه اليات نساء دوس في الضلالة وحديث الرسول كود عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضرب اليات نساء دوس على ذي الخلاصة سنة ذي الخلاصة إلى ما يكون كان هوانك غير دوس الدنيا تجي ميس قيامته دعي ميس marka way ba dhacday buulahay oo reed doosintay gaaloobeen ya haweenkooda sanamka u nikin jireen buulahay laakiin ma ayna dhicin taariikhda islaam lagu maayo
فهدموه سنم كاسي بريان أو دميان وأعدموه ويترترين وقرروا التوحيد كما داتك أسوغان في طبالة ماشي ليراد وبينوا ويعديان فحقيق وحكوها بون يهيبوا لمن قف محمد عبد الهادي محمد بن سعود ويه حالهم حال كودو وفعالهم فعل كودو هذا وكان يهي أن يتشرف القرطاس إن وراقه كل شرفوبان لقو قرأ تاريخ هذا بهاي والمداد خدك وكل شرفوب وأنتم شرعين لفافيو فضائل في البلاد وبين العباد إن بلاد عباد وما هذا حضر لقو فافيو نكاس مركا كتاب كيساس ومحمد عبد الهادي محمد بن سعود وصاقوا أماني أيا جيران مركا wuxuu leeyahay maxamed cabdul wahaab ninka la yiraahdo amarkiisu wuxuu ka bilowday markii hore oo ku bilowday magaalada Cuyayna la yiraahdo sababtuna waxay tahay aabihii ayaa qaadi ahaan jiray cabdul wahaab baa qaadi ahaa zamankii maxamed bin xamdi bin abdullah bin muammar al-mashhur markaasuu wuxuu leeyahay zamanka asaga meesha maxamed cabdul wahaab aabihii uu qaadiga ka ahaa waxa faafay oo faa'iq noqday oo faafay najdi iyo dhaxdeedaba shirkiga اعتقادك جيدها الاعتقاديو يا أشجارت يا قبورته يا إن محوها قبورته لست هذا الاعتقاديو يا إن لا بركيستو وحولاي هاي مركا محمد عبد الوهاب أيا وحو يمد بودي مدينة وصاقلي مدينة كلكو صاقلي وحو أركي قول سلام يسر رسولك عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم يا رسول الله إليه markaasuu wuxuu yiri buu yiri nin baa weydiiyay maxamed bin xayaato la oran jirayo maxamed cabdihawa maxaad leedahay buu arinta dadkan asaga dadkan kadaati wuxuu yiri waxay sheegayaan waa baadil waxba kama jiraan waa khuraafiyo waxaan saliya raad muxuu toona aan lahayn buu marka wuxuu sheegayaa ninkaas maxamed bin bashir kitaabka unwaanul majd fi taariikh najd safxada 30 iyo koobaad wuxuu cadeynayaa maxamed cabdul wahaab زايد بن الخطاب وعمر بن الخطاب walaalkiiha meesha bujayla la yiraaho qubadiisi inuu maxamed cabdihaab gacantiisa ku burburiyay qabrigeedii ayuu halka ku dhigaya kolkii rag la socday intuu dumay yeeray ka cabsadeen markaas wuxuu leeyahay markay arintaasi ay dhacday oo ay muxuu ahaa qabrigii ay dumiyeen زايد بن الخطاب وعمر بن الخطاب walaalkiiha ayaa islaanu u timid islaantaas oo qirata zino taariikhda kale islaamku waxay sheegayaan inay gabar ahaydona xataa muxsinaba ay ahayn asagu laakiin ninkan soo asagu ihsaan falay wuxuu leeyahay ihsaan bay qiratay muxuu ahaa inay maxaad ka hor ay guursatay markaasay muxuu maxamed cabdihaab uu rajmiyay halka ku rajmiyay taas waxaan garanaynaa hadee yaa wax rajmiyo horta yaa wax xukuma waa in dawlad iyo xaakim iyo qaadi la helo nin shakhsi oo wadaado meel jooga inta gabadhu timid waan siinaysan inta taa inuu dilmo banaantay ma xukunka inuu qaado ma banaan marka wuxuu leeyahay maxamed bin sacuud buu u tagay oo meesha dirciye la yaa joog markaasuu tawxiidka u sharaxay wuxuu meesha ku dhigayaa kitaabka unwaan majd fi taariikh najd safxadiisa 35 wuxuu yiri maxamed bin sacuud buu yimid markaasuu u sharxay muxuu ahaa tawxiidki markuu tawxiidka u sharxay ayuu maxamed bin sacuud la dhacay arinta ayadahay markaasuu yiri maxamed cabdiwahaabow wax walba waan ka qaadanaya oo la socoto ala rasuul ilaahay waan ku gargaaraya laakiin wuxuu yiri hal sharda iga qad qoladaydan reer muxuu ahaa dirciye la yiraahdo kolkay beertu soo godo xoolaan ka qaataa buu xoolaha asaga inaad iga faragelinaynin muxuu yiri muxuu ay ballan qaad wax walbana waan ku sameynaya kolkaas wuxuu yiri waxaan ilaahay ka rajaynayaa mid hore inaan wax kasta oo diinta iyo muxuu ahaa gargaarkeeda iska kaashano balama kaaga qaadaya inaan naf iyo maal suhurno laakiin waxaan kale ka rajaynayaa ilaahay inuu ka kaafiyo dadka xoolahooda inuu fatx kale futuux kale ilaahay ku furo markaas wuxuu ilaahay ninkan kitaabka qoray way rumowday arintii sheekhu uu sheegay oo waxa dhacday buu yiri inta maxamed cabdiwahab loo keenay ghaniimadii muxuu gaalada laga soo qaniimaystay gaalada yaa waa muslimiinta aan maxaa wahabiyada ahayn inta laga soo qaniimaystay inuu maxamed bin sacuud uu keenay uu yiri qabo muxuu ahaa ghaniimadan talaata qaba ilaahay ba ka kaafiyay muxuu ahaa dadka xoolahoodii aad ka dhicilay marka ninkaas wuxuu leeyahay kitaabka unwaanul majd fi taariikh najd safxadiisa 36
ayaa wuxuu leeyahay walamaa haajara markuu soo hijrooday man haajara ila dirciya maxamed cabdiwahaab markuu saldhig dirciya ka dhigtay oo maxamed bin sacuudna soo dhoweeyey magaalada dirciya qaryada muxuu iqliimta la yiraahdo markii ay u soo hijroodeen dadkii oo wastadoon waxa ay saldhig ka dhigteen wadan ka dhigteen kaanuu waxay ahaayeen fi adyaqi caysh nololta ugu ciriiri badan bay ku noolaayeen wa ashad xaaja wabtulu wala ibtilaayi ibtilaan shadiidan فكانوا في الليل وحي هاجرين محمد cabdiwahaab xirtiisu habeenkii yaakhuduna kuwii qaata al-ujrat habeenkii bay shaqaysan jireen ويحترفون وفي النهار يجلسون وحي fadhiisan jireen عند الشيخ في دروس الحديث والمذاكرة وأهل الدرعية meesha dirciya iyo dadka ku nool yoomaydin fi qaayati dhacfi wadayq almu'ana dad aad fuqaraan hantay sanabahan walakin kama qala ila abdullah rasuulku sidoo yiri alayhi salatu wasalam ba dhacdo abdullah ibn abbas wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ayay arintaas ayay ku sifoobeen waxaan arkay buu ninkan kitaabka qoray meesha dirciya la oran jiray labadii qaybood oo maxamed cabdiwahaab uu meel deganaa maxamed bin sacuud uu meel deganaa oo wuxuu yiri intay hadee laga dhisay guriyaan caadi ahayn oo barwaaqo laga dhisay oo meel walba daara laga taagay sidii sheekhu uu sheegay ay noqoto ilaahay kaafiyay wuxuu leeyahay ninka maxamed muxuu ahaa bin bashir la yiraahdo safxada kitaabka asaga aan soo sheegnay safxada 38 wuxuu leeyahay falama istaqarra markay ku sugnaatay fi quluubihim xirti maxamed cabdiwahaab quluubtooda macrifatu tawxiid kolkii tawxiidka ay barteen وضده ومعرفة ضده أو توحيد كضد أو شركية بعد الجهالة أيا أشرب وحال عبسي في قلوبهم حرت محل عبدها قلوب تودي محبة الشيخ شيخ جعيل كيسي وأحبوا وحي جعلادين المهاجرين ضدكي مهاجرين تأسوا هجرودين ويجعلادين وآووهم ويطمن محل عبدها بحرتي محوها حرتيسية وقرضي ريد العياد ضدكي أسوا هجرودين ويطمن ثم أمر شيخ وحو أمري بالجهاد مو أمر مركا كل واقع محمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب بالجهاد بكل واقع لمن تطلقوا الجهاد عادة لعلوب أهل التوحيد ذاتك أهل التوحيد كان لعلوب أو وصبه أهل التوحيد كعاي أو وصب أهل التوحيد كأهل كيسنا عاي وحضهم كبره عليه ذاتك أساقين لا تقالهم ما تقانا ذاتك محمد عبدالوهاب لعلوب هايو الوجه هذا هيو وعالم الإسلام بأسره ومغرب شرق إفريقيا مغرب العرب معها حتى يوروب وسط كذا الإسلام كي برتمها يوروب دقنا حدود الجينية إنديا الراشة مسلكي دقنا جزيرة العرب ودن عالم الإسلامي بأسره أيا وحكو حكومين كفريهن وحا صوبح يالكا محمد عبدالوهاب كلي إنه مسلمها إيا أنتي مركي دمنا راعي أكو بيرتي أي مسلمين هاين ضد كاسا أهل التوحيد لأم محمد عبدالوهاب وقرير أساقي حرتيسي أنتي كلنا أعداء التوحيد أي أبحي وحضهم فامتثلوا ويقاتين ويفرمين محمد عبدالوهاب حرتيسي إنه ضدك كجهالان أي أمرين فأول جيش عيدا كي أقهري أو غزاة دولي أو ضدك أهل التوحيد كالعلو بكل دولي ومسلمين تكالي 7 الركائب تضبط جديدة أيها فلما ركبوها كل أي فلان فرده أو عجلت بهم النجائب وفردها إلى أردن في سيرها يسقطوا كذاتين من أكوارها إلا ركدوا لي يقين الجهاد يقين ما ينهين لأنهم وحوري لم يعتدوا ركوبها فردها هي الجهاد كمين أقول أظن سبحان الله على بعض العرب يا ويررين تذكر هباديها قاركود محل الدرعية كلها يا ويررين فغنموا ويغنيمستن ورجعوا سالمين بالله عليكم فيري تذكر اللين هي مسلمين حولها لغنيمستن حولهم مسلمين توي وكان شيخ وحوها رحمه الله لما هاجر إليه المهاجرون فيري مقعان فيري لما هاجر إليه المهاجرون كل كي مهاجرين تويسوا هجروت مهاجرين وحال هذا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إيوه تذكي قريش هذا عربية مسلمين تهاي مكاكي سهاجر بدين سهاجر أنصارنا وحال هذا نمكي ري قحطان محوها أوسي خزرج إيا انتي كالي لجرتي مدينة دقانيت بأنصار الأورنجل وحا تاريخ كتها الله محمد عبدالوهاب قردي درعية محمد بن سعودية دقانانا أنصاري نوبحي
أساقي أنت كلا أسوا هاجرتينا إنها مهاجرين لو بحية مركا أساقا إذن مركا نبي مياه وأنو تجدونا إنا مالها كسو بحي دونتو وحا نبي كديرين إنو سو موجين دونا إن شاء الله ويتحمل وحو قادي جري شيخ الدين الكثير أو بدمو في ذمتي دادك أو قادي جري مهاجرين تا لمؤانتهم دادك أسوا هاجري مؤانتو خرش كودا وما يحتاجون إليه لحوائج الناس وجوائز الوفود وفود محاو حيالها لسين هايو إليه من أهل البلدان والبوادي ذكر وحال إيش قال لي أنيقا أنه حين فتح محمد عبدها مركو فرتاء الرياض مقال الرياض ضيرا وفي ذمته هنا 40,000 محمدي لعقتي مركا جوكتي أفرتن كله 1000 محمدية أيقو سيودي لكن تاريخ لهم حيدي قيسا مساجد الرجال كيال جوجشي كوك جوجلنا حريرته هايد أيا أنت للرجال لعقت أيا لوجد لكن أيقو سيدنا يودي قيان بل توضع عنه رعنا مركا رياض يا دقنا رياض مسلمين دقنا وح قال لقوم أوجي dadkii riyaad degana cagta la mariyay waa la baabiyay hatta fi bacd kutub taariikhin waxa dhigaysaa kolkay jabeena laga adkaaday inaan laga hadhin haweenka ciyaalkii si loo leenahay hatta oonay u dhamaadeen marka wuxuu yiri xiina futiha riyaad markii la furtay ama fataha riyaad markuu furtay wa fi dhimati 40,000 muhammadi uu yahay oo faqadaha wuu guday dayntii min ghanaa'imti riyaad uu ka helay yuska guday غنيمة يا لقى الأرض قف قاله أو إلهي يا رسول كيسة يا بعثي يا حساب الدين الإسلام كيرن بيني أيها حوليس الغنيمة استا قف مسلنا أو لقى يعملوا كتوحيد في عيني هاي أو لقى يعملوا كعلم بدني هاي أيها لديلها هي قوة لكن كلية صدوا أسروا أرك وحانوا أرك أنت سويا وكان لا يمسكه على درهم ولا دينار كي أن لا هرم بها شيل ما كيتسنجر محل عبدها وما أوتي إليه وح الله كان من الخماس خمس كغنيمة ذا وح وجي ماد مركا ما كيسجر وبحنجر يو زكاة وح وجي ماد يفرقه في أوانه مركا أبو كلا سير الجري وح غنيمة ذي زكاة وجي ماد وكان يعدل العضاء الجزيل وح بحنجري وح بحياة والأرك ما مود النبي الله محمد مسكو شبهي النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث وحقيرها يعني أي تاريخ شاقيسا لبب ورد حوله ودحي وقف سنجري تيبو شبهها يا مرك وح بحنجري عضاء الجزيل بحيث يهب بين هي خمس الغنيمة العظيمة على 2 أو 3 غنيمة ذا وحلا ذاك مسلم كلا لين اللي قصوا دحي غنيمة ذا خمس كاد ولا بقف سنجري هاي فكانت الأخماس خمس كوحوها يوز زكاة وما يجبى وحي لصقر إلى درعيتي ومن دقيق الأشياء هذا يريد وجليلها كذا وين بقى كلها تدفع إليه ولو جمعات ولو كنت غنيمة بيده ويضعها ودجنجر حيث شاء ميشدون ويأخذ عبد العزيز ولا غيره من ذلك ولا يأخذ عبد العزيز ولا غيره من ذلك شيئا إلا عن أمره إن محمد عبد الهوي وقلامه حتى عبد العزيز يا محمد بن سعود مدنا كما قادن جرين شلن إلا محمد عبد الهوي أمر كيسة أيكون بحيان موي فبيده الحل والعقد قعنتي سيفرد يحرده بايكوسكنيد والأخذ والعطاء إن وحلا سيين وحماها على سنين والتقديم والتأخير ولا يركب مفعول جرين جيش عيدا ولا يصدر لما أمر جرين رأي من محمد ومنه عبد العزيز محمد بن سعود ويلكيس عبد العزيز إلا عن قوله ورأي محمد عبد الهاب قول كيسي رأي يسموين حتى أمر طلب لما غادج فلما فتح الله إلهي مركو فري رياض عليهم كلك أفري أو وتساعدهم الناحية أي جهادي أبلارد حكم أبلارد وأمنة سبل ودوينك إنما قالين وانقاد كل صعب من باد وحاضر oo wax kasta ay hoggaansameen baadi iyo magaalaba la isdhiibay yujcala sheekhu wuxuu yeelay maxay cabdihaab amarkii maamulka biyada Abdul Aziz yuu dhiibay wa fawada umur almuslimiina wa bayt almal yuu dhiibay ilaahi maxamed bin saud wan salakha minha wa kabahay bil kulliya ولازم العباده عباده لازمي iyo تعليم الناس تعليم العلم علمك inuu dadka baro ayuu laazim hameesha ka soo baxay nin waxa arkay muran ma kaga jira inay maxamed cabdiha madhabkiisuba aasaaskiisa horeba uu ahaa takfiiri oo muslimiintii u gaalay wuxuu leeyahay ninkaas maxamed bin bashir la yiraahdo kitaabkiisa Ciwaan Majdi sanada saga muxuu ahaa 1159 ولما من الله إلهي مركو قال سبحانه وتعالى بظهور هذه الدعوة دعوة ظاهرتان كذا دعوة محمد عبد الوهاب وهذا الدين
دين كذا تظاهر ديس واجتماع شمل المسلمين مسلمين توحوا هذه كلا تكسنا إن لك إلهي وكل مية وإشراق شمس التوحيد توحيد كقرحي سنة يفتينتي على أيدي الموحدين موحدين ده ما تقانا ووهابية ذلك المشركين وي يو أمر الشيخ وحو أمري بالجهاد إن جهاد لقاضو لمن أنكر التوحيد توحيد كتاتك إنكري لغو قاضو ومن أهل الإلحاد ومسلمين تقالوا دن وجينا يا راشيا يا إنديا يا يوروب يا مغرب العرب يا شرق إفريقيا يا جزيرة العرب ودن مسلمين تكون نوليد ويا دتك جهات الوقاية قال الله يقان وحولاه محمد بن بشير كتاب كيسا صفحة أفرتن يتضوى سنة هالبقل كن هالبقل إياه لحدا كي مركي لقاري دقال له قاضي أو دقالك حجابه قاضي محمد بن سعود يا محمد وحكوا قاضي نكلو جري محمد بن سعود أولاديسي أيا وحكوا قاضين ماشي اللي درعية أيا كوا قاضين فلما رآهم انهزموا ولا هاربا فطمعوه أيا وحولاه وحا دقالك لو ديلي نكلو أورنجري محمد بن سعود لبدي سويل أو فيصل يا سعود أورنجري أيا دقالك أساقا كل dagaaladaas marka wuxuu sheegayaa dagaalo asaga nin dahaan bin muxuu ahaa dawaas la oran jiray dhax maray falam yaatihim almuslimuna illa wa hum musta'idun kolkii dagaalka qolada ay ku duuleen ay isdagaal hayeen yaa wuxuu yiri inta nin baa intuu u sii sheegay kasi hormaray oo ninkii la oran jiray dahaan bin dawaas uu sii nin ayaga la socday duulaankooda yaa intuu ka hormaray ayaa muslimiintii oo gaaladii waxay u tageen gaaladii oo muslimiintii riyaal deganay waxay u tageen gaaladii oo diyaar ah markay muslimiintu weerar ku qaadeen ayay hadeennimo sii diyaar garoobay ahaanaya muslimiintu marka asaga soo jabeen waxa laga dilay buu ilaahay marka asaga dagaalka asaga oo lagu qaaday riyaad dirci waxa laga dilay buu ilaahay waqutila min almuslimiina ciddatu rijal muslimiintu waxa laga dilay muslimiintu ma taqaana waa habiyada way dhowr nin baa laga dilay dadka kale wuxuu oran doonaa ninkan saa in badan arkaysa qutila min qabiil hebel iyo magaal hebel intaas laga dilay لكن قالوا وحنا مجاهدين أنت سلقي دلي أم مسلمين أنت وح كلام مسلم مجرى أكتر هل قف أو كلام مسلم مجرى وسام تلك بدي وحلا محمد بن بشر كتاب كيسة صفحة كونتن يكو وحاد علي بولاهي سندي هل بقول كن هل بقول اللحن يكودي أيا وحاد علي وقعدي دجال كل أورنجري ودولا مذودي وقعدي الأورنجري وقعة البينة الأورنجري وميلو دحايسا رياض ku taala arintaasna waxay ahayd maxamed kale Cusmaan bin Muammar ya lama hada sheekha markuu sheekha Maxamed Cabdihab uu la ballamay iyo Maxamed bin Saud ayay jacaluhu waxay yeelan ala xaalihi amiir bay ka dhigan fasaara bil muslimiina muslimiintu la socod oo la duulay oo asagu la baxay muslimiintu ma taqaana waa wahabiyadi fi ahli Uyayna muslimiintu ku sugnayd iyo Xuraymal ماشي حريم الليلة ومعه عبد العزيز بن سعود بن محمد بن سعود بأهل درعية أو منك عبد العزيز بن محمد بن سعود يا أهل درعية وات يا قريون كادي يا أهل الرماء وقصدوا الرياض ماشي الرياض يا كو قصدين يكدولين فأتوها من شرطها يمشون مركا هالك دجال كالسكو فرساري أيا وحول له وقتل من المسلمين مسلمين وحلقة دلي وهبيد ويتذك قالوي عبد الله بن محوها بنو عبيكة نكليا إيا ومن عقيل فلما كان كلكم هذا آخر اليوم أي سار المسلمون مسلمين توسعين إلى بلد منفوحة ماشى منفوحة ليلاد أي سعودي كتاب كيسا وحو كلها هاي هذا كونتن يلبو يا وحدا واقع لورنجري عظيمة هيدا بين المسلمين وأهل ثرمتك على النهر أهل ثرم المجال اللي يرادو تدك هذه مسلمين تدحضوا العادي مركا وحو لها هاي dagaalkaas markuu dhacay ayaa waxa guuleystay Ilaahay sidoo uu dhiga weeyay muslimiintii marka wuxuu leeyahay muslimiintii markay guuleysatay ayaa muxuu ahaa qaniimadii ayuu jamciyay Abdul Aziz فجمع الغنيمة عبد العزيز وقصد بها الضرعية عند أبيه وعند الشيخ بالله عليكم فيري wuxuu leeyahay qaniimadii buu kulmiyay kolkay magaalada Sarmad dadkii muxuu la laayay eber laga dhigay ayuu qaniimadii intuu kulmiyay yu aabihi iyo Sheekh Maxamed Cabdi Wahaab oo dirciye jooga ku haray waa Maxamed bin Saud wiilkiisa Abdul Aziz loo oran duulaanka ciidanka wati ayuu u geeyay markaasuu kitaabka wuxuu ku leeyahay
فخربوا الزرع وانقلبوا راجعين دقال كلي هذا كدولين كل كاس وحول هي وحي جبن باره أيوة أنا بتقبنا ويسون نقضي وحوله ماشي أيضا وفيها سنة أيضا إنسان شجني أي غزال المسلمون وحي كدولين بلد الثادق فأخذوا أغنامهم بلد كثادق لورنجر بكدولين أغنام تودي أرجع بكحيستين وقتلوا منهم 6 رجال لحن قفنا وكدلين أو أرهان وكحيستين وحوله كتاب كيسة صفحة كونتوني أفر سنة هل بقول كن هل بقول يلحن يلا بدي أيا وحوله هي وذلك أرنتاس وقع الأورنجري وحاد عليه حبونية الأورنجري أو رياض ما دجال كدعي والنخل معروفة وماشى له يقان وذلك وحوله أن محمد بن سعود صار والسعودي بودولي بمن معه من المسلمين تدكي وحي مسلمين همعيسها أو وهابيتها يوم من درعية كتجي وقصد رياض بونو قصدي مركا فلما غربت الشمس وحوله كل قرحة العادي أيو دخل المسلمون وحي قالين منفوحة ماشى منفوحة ليراد ثم سار وحى السعودي عدة وقعات صغار بين الرياض وأهل درعية سرادي وحوله كتاب كيسا صفحة كونتون يشان كن هل بقول لحن يصدح ذي يا وحال ديلي عثمان بن معمر في مسجد العيينة نوحوها عثمان بن معمر مدحده وهابيده كميدها ولا شكي waxa looga shakiyay inuu xogaa dib u gurasho sameeynayo oo sandaacad ka ahayn arintan iyada fulinteeda qoladii qaryadiisa ahayd ba wuxuu leeyahay sida uu ninkan dhigayo kitaabka safxada konton iyo shan ku dhigayo yaa ka soo dacwado waxay yiraahdeen sheekh ninka asaga waan ka shakinay wuxuu yiri maxamed cabdiwahaab kula ballamay cid kasta oo ka hor timaado ka shakadaan diintu ka shakadaan hatta amiirkiina aanu noqday waa qolo amiirka ka soo dacwootay oran maayo ka taga khaarijiya maalintii dambe asagoo masaajidkii joogo ku tukaday yaa lagu dilay halkaas lagu duluulay oo muxuu ahaa lagu iqtiyaal hadee nin oo waardiisi dilahayo oo waa shaki laga shakiyay bas ayaa iqtiyaal lagu sameeyay ninka dhanay amiirka wuxuu leeyahay kitaabkiisaas muxuu ahaa safxada konton iyo 6 wuxuu ku leeyahay فلما بلغ الخبر الشيخ مركو قال محمد عبد الوهاب قدس الله روحه أي ركب في إلى العيينة وذلك أن خشى أنه خشى وحكى عبصدي الاختلاف وذلك ثالث يوم من قتله مركاسة وحا حاسي شيء بولدتك كل مع شيخ أركانبا وادقين وحاصلين ومع المسلمين الرجال المشهورون بشجاعة مركا وكلا دجي مع لك الدجين هيا نكي أمر وحكى بحية مركا لقالاتها شدي حتى الشيء هنقض أمير كناني عدي الدعوة نواشة كذانبا هلا خارجي وانا لا خارجي marka dadkii kulku ka baqay qabiilkiisa ayna hadalaana wuxuu yiri muxuu ahaa waadiji oo meesha xoolo laga bixiyay maxamed bin bashir wuxuu leeyahay kitaabkiisa safxada 59 wa fiha sanada wa kun hal boqol 65 ayaa saar ahlu dirciyati wal uyayna way socdeen wama xawlahum iyo wa amiirhum mushamir bin muammar yahay وقصدوا الخرج مقالة الخرج اللي يبقوا قصدين وأخذوا وحي كقاتين خرج أغنام أهل الدلم ماشي الدلم ليا غنيمة أغنام تادي أرجع ذي بقاتين ورجعوا بها وإلى النقدين وطلبوهم ولحقهم وطلبوا في عفنة الحائرة المعروف والمسلمون نحو 40 رجل وطلبوا نحو 100 وحيث سو قاري قالوا مسلمين تي وكما عابد وهابية هيد وأفرتن أو مقالة صوب للقيسة صوب بوبتي iyo qoladii xoolahoodii raadinaysay oo boqol ah markaas ay u sabreen buu leeyahay muslimiintiyo markaas waxa la dilay muxuu ahaa qoladii uu asagu ku tilmaamay marka gaalada qoladii baa la dilay muslimiintii baana guuleysatay oo wahabiyadii sanada ayada ayaa waxay ku duuleen bal muslimiintu waxay u socdeen ila fariiqi badwi yuqaal lahu duhayman la yiraahdo fa akhaduu ajmaa'ina kulliba way wada qabsadeen wa qutila min almuslimiin isnaan muslimiinta laba laga dilay buu magaalada dhanana waa la qabsaday muslimiintu yaa way ووهابية مقالات قبسنا يا قالوا يا ومسلمين تقلوا وحول محمد بن غنام كتاب كيس صفحة لحن يكو وفيها سنة أيضا كن هل بقول إيا لحن إيا لحدي أيا صار على أهل حريمل من الإمام محمد بن سعود مقاتلات وسرايا وحد أحمر محمد بن سعوديو إيا قولنا أيضا أهل حريمل دقال الله أيا أحمر يدولام يريد
markaasoo waxaa ahlu manfuuxa maxaa yeelay cahdigii sheekha ayay buriyeen muslimiintii bayna la dagaalameen ninkii wakiilka looga dhigayna waa soo eriyeen sanada wuxuu leeyahay 1167 ayaa daajira waxaa cadhooday dahaan binu muxuu dawaas min alxarbi baynahu wa bayna almuslimiin وطلب من الإمام محمد بن سعود المداهنة والدخول في الدين وتجرى عليه أحكام المسلمين نكان دهان بن دواس لي الرياض هيستي يا وحو كد علي بويري دغالكي المسلمين كل جري مركاسو محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود بو كد دلبي إن هشيان oo diinta uu soo gala maxaa islaamka oo diinta wahaabiyada oo sida u dhigay oo ahkaamta muslimiinta lagu duleeriyo oo muxuu ahaa fardi iyo silaax iyo xoolana muxuu ahaa uu bixiyo ayuu dalbay maxamed bin qadam wuxuu leeyahay sanada ayada yaa futixad waxa la furtay xuraymel anwatan xog baa lagu furtay wadaalika anna abd alaziz bin maxamed bin saud yaa saara ilayha wa ma'ahu 800 soo wata ayuu ku duulay oo ku baxay markaas meesha xuraymel yaa xoog lagu furtay sanada ayada bayt magaalada xuraymel muxuu ahaa agteeda haydo la oran jiray oo wasadkeeda ku tiilay ayaa wuxuu leeyahay maxamed bin saud iyo markii nimankii meesha deganaa waa meel la oran jiray bishucab uwayja la oran jiray ayay muxuu dadkii argagixiyeen markii dadkii argagixeen magaalada laga qaxay magaaladii dhaneed wuxuu leeyahay saratil balad waxay noqotay bayta maalin wasara duruha wa nakhiluha ghanimatan lil muslimin magaaladii dhaneed dadka markaa ka qaxeen macal guryaheed waa la ghaniimeystay hatta jaqaf lagama tagin maxamed bin bashir wuxuu leeyahay kitaabkiisaas صفحة 7 وكن هالبقول 7 كي سنة أيضا يا وقع وحى فيها واحد عليه وقعة الرشام ماشلية سبب تكون علينا وحي هيد عبد العزيز أيا وحول السعودي بوري وكدولي بالمسلمين وكل دولي بوري أسوا مسلمين توات ودخلوا دور بعض البلاد باي قالين مركز مسلمين أهل الرياض وحلقة دلي صدحن مسلمين تنا محلقة دلي وحلقة دلي طبعا قفوا كلا لقى دلي مسلمين ووهابية dadka gaalada lagu duulina muslimiinta kala way sanada ayada yu Abd Alaziz ahlu dirciya la Saudi buu la duuli wajiya wa jamciil muslimiina wa qasadu naahiyat al-wash magaalada nashmil ee dhankeeda aadin wa naazala ahlu ushayqar sanada ayada Abd Alaziz baa duulay muslimiinta dhaneed buu la duulay wuxuu ku duulay baladu daathiq buu ku duulay saadiq buu la duulay ku duulay wuu go'doomiyay dagaal ba halka ka dhacay wuxuu muxuu ahaa gooyay nakhiishoodii geedihii buu gubay waxa laga dilay dadkii meesha deganaa 8 qof muslimiintina 8 baa laga dilay waa wahaabiyada maxamed bin bashir kitaabkiisa asaga safxada 94 wuxuu leeyahay sanadii oo 1178 markii la joogo wa fi aakhir hadii sanadii ayaa qutila la dilay maxamed bin faris in la oran jiray oo waxa dilay asagana niman muxuu wahaabiyada يا اغتيال كسمي أسجن دلي رجع محو أنا أيها كتر سنبو هانجري أو ولي بحنبليا أيوة هانجري محمد بن بشر وحولاي هي سنة يكون لبا بقل يا سدادي لحلم عليه عفوا يا وحولاي أول جمادة جماد الأول كادي أيو صار لسعودي سعود أو محو أولاد محمد بن سعودها غازيا بالجيوش المنصور أسجد جيوش اللو قرقاري أو من البادي والحاضر بادي يا مقالة بوطة وقصد القضيف ماجي قضيف ليو قصدي وحاصر أهل السهيمات يو قوضهم جي وتصور المسلمون مسلمين تبا داتين جدارها الدربية هذه بكدعين وأخذوها ويقبسين عنوة ونهبوا ما فيها من الأموال الله وحي ما لهانا ويبوبين أو ويبلي لقيستين يو غير ذلك ما لا يعد ولا يحساب كقاتين هالك أيضا وأخذوها عنك ماشي ليانا أخذوا عنك ويقبسدين عنوة ونهبوها ويبوبين قتل منهم على يد عددا كثيرا من الرجال أكثر قلدي كله من أفر بغل وحكى بدن من 400 ثم سار إلى القديح بوسعودي وأخذهم عنوة وأيضا كو قبسدي سعود بن محمد بن سعود وأخذ منهم كثيرا من الأموال وحكى قاتي مال بدن وقتل والد عليهم رجالا أو وقتل عليهم رجالا واستولى على ذلك على عنك والعوافي وغيرها وحاصروا الفرض
meesha ayadana saasay ku qabsadeen sanada ayaa wuxuu ku duulay buu yidhi waxaa dhacday duulaankii qashro la odhan jiray ayadana arrintaasna waxay ahayd maxamed bin sacuud baa la socday muxuu ahaa juyuushta islaamku la socday oo najda iyo wixii baadiya xaadir magaalaba ah markaasuu wuxuu qastay meesha la yaa jamal shamar meesha la yidhaahdo oo qabiilo badan ay deganaayeen markaasaa waxaa ku duulay maxamed bin sacuud wuu qabsaday meeshii jumlatan sideedaba wuxuu ka qaatay amwaal aad u tiro badan oo geel ka badan 8,000 oo muxuu ahaa halaad ka badan waxa la wixii muxuu ahaa ari ahana waa qaatay waxa la wixii amtacay iyo wixii hanti ahana waa ka qaatay asagan sanada waa kun ma ayuu waafaaday maxamed cabdul wahaab ninkii la oran jiray halka ayuu ku waafaaday فانتهى أناس كثير من أهل الآفاق بسبب ما سمعوا من أوامره وهدم المسلمون بركة علمه جميع القباب يري محل عدهم قرب انتي وحو وافادي وسندا كن لباب بقل يا لحدي ويان يله سندا ايضا ايو وافادي محل عبدوهان مركاسا وحو ليهي waxaa ku intifaacay amaan dheer buu meesha uga soo jeediyay maxamed cabdiwahaab sheikhul islaam baa la odhan jiray xabru alhumaam alati camad barakatu cilmihi alanaam fa nasara sunnata wacadumat kolkuu amaan dheer soo tiriyey ayuu leeyahay dadkii baa u yimid oo meel walba ka soo aaday maxamed cabdiwahaab kolkay maqleen awaamirta iyo nawaahid u bixinayo muslimiintii baa dubiyeen bibarakati cilmihiba jamiica alqubaabi walmashaahidi alatii buniyat cala alqubuuri wagayraha min jamci almawaadic wax alla wixii qabri ahaa oo xataa min aqda xaramayn ku yili oo yaman ku yili oo tiyaama ku yili oo cumaan ku yili oo cisa ku yili oo najd ku yili wax alla wixii qabri ahaa oo dhan ba ku yili ku weynba ayaa la burburiyay buu leeyahay maxamed bin qanam ma bin bashir kitaabkiisa saas ku sheegaya isla kitaabkiisaas maxamed bin bashir safxada 218 wuxuu leeyahay kolkii la joogay hijrada 1217 sanada ayaa waxaa nusqaamay sulxi maxamed muxuu shariif qaalib shariifkii maka iyo cabdul aziz bin maxamed bin sacuud وفارق الشريف وزيره عثمان بن معافر وخرج من مكة وترك الشريف ونابذه وفد مركزه وحا كلكو وزير كيسي ايس خلافين شريفك اي وزيرك وحو كبيري عبد العزيز عيدن كيسي كبيري شريف كيبا محمد شريف قالب لو رنجري ايا دولي oo ka hortagay qoraantaada ku soo duushay wahabiyada ka hortagay markaas wuxuu leeyahay kolkii meel dhaxda la joogo oo magaalo la yiraahdo Ubayla halka markii la joogo ayaa halka la isku fara saaray markaas uu shariifkii oo Shariif Qaalib uu cararay markaas Daa'if ayaa soo galeen ciidamadii wahabiyada ayaa soo galay Daa'if markay soo galeen maxaa dhacay oo lagu sameeyay Daa'if bal kitaabadooda aan aqrino wuxuu leeyahay markay Daa'if soo galeen oo Shariif muxuu Qaalib uu aaday Maka u cararay oo Daa'if uu ka tagay ayaa fadakhalahu Uthman waman ma'ahu min al-jumuc وفتح الله لهم عنوة بغير قتال وقتلوا Daa'if waxay ka dileen من أهله كيسي في الأسواق والبيوت بكلاين نحو 200 لبا بقل أوقف بكدلين قريه يسوق وأخذوا من الأموال من البلد waxay ka qaateen amwaashi magaalada asmaanan bay qaateen lacagti wa mataacan wa silaahan wa qumaashan wa shay min al-jawahir wa sil'il musammana wax alla wixii qaaliha iyo wixii raqisa ma la yuhsa ما لا يحيط به الحصر وحن لكوبي كري ولا يدركه العد على نتري كري magaaladii Daa'if ay soo galeen ciidamadii wahabiyadu maxaa dhacay محمد بن بشر wuxuu sheegay kitaabkiisa safxada 219 وقتلوا فدخله عثمان ومن معه عثمان بن المضايف oo Shariif Qaalib ka tirsanaa wasiirkiisii maxaa difaacaha oo ka baxay wahabiyada raacay ayaa iyo ciidan u wata soo galay oo wahabiyadiya markaas wuxuu leeyahay waqatalu waydilan min ahlihi fil aswaq wal buyut laakiin taariikhdu waxay dhigaysaa awwal shay ay qabtaan qabriga Abdullah ibn Abbas oo dumiyay Abdullah ibn Abbas yu dami ka galay marka 200 bay suuqa ku dileen buu yiri guryaha wa akhadu min al amwali min al balad wixii maal ahaana waa ka qateen magaalada asmaanan
هذا العاق هان له way qaateen ومتاعنا way qaateen وسلاحنا قلبكنا way qaateen وقماشا وشيء من الجواهر والسلع المثمن بدعات يا جوهرتي قالي هاد بيررتين ما لا يحيط به الحصر وحان لكوبك ولا يدركه العد أنا لا نترين كربي هالك كررتين والكتب تاريخ waxay dhigaysaa oo culimada idin zamanta ay sheegayaan daayif markay soo galeen yay inta soo maalmood bay hantidii rarahayeen hatta guryaha intay dumiyeen yay dahabkii lagu aastay muxuu guryaha salkooda ay kala soo baxeen markaas ay banaanka intay degaan bay teendooyin ka dhisteen kolkaas ay teendooyinkooda waxay dharkii iyo hantidii waxay noqotay xoolihii la qaniimaysanayay buuro oo kale noqdeen waxaas ka siyaab badneed taariikhdu ay dhigaysaa kutubtii islaamka oo Bukhari iyo Muslim iyo misxafkii Quraanku ay ku jiraan ba daaifiinta maka u dhaxaysta ayaa inta warnay oo dameeriha awrtay raran hayaan antida ku raran hayaan yaa ku istaagay ku xaarayo oo kitaabka Quraanka dhulka laga qaadan fiiri cid u maleynaysa ciidan wax kale kitaabka Quraanka taariikhdu waxay dhigaysaa daaifiinta maka u yaala ya xoolo dameer ku xaareen dameeraha antida ku raran hayaan xoolaha bililqada ay ku raran hayaan ayaa daafiya maka inta u dhaxaysa lagu istaagay wixii kala dhan waa la qaadanay laakiin Quraanka iyo muxuu xadiidka lama qaaday وضبط وكوبي عثمان البلد وقبصدي وسلمت له جميع نواحيه وبواديه واللودي مقالة ضايف وجمعوا كل ميان الأخماس بالله عليكم فيه خمس كيف كل ميان يا خمس لا كل ميان وهري طايف وأهل الحجاز ويدتك مسلمين تها وي ومقالة دي كل كي مع جزيرة العرب أي ردودي صدق لي مقالة ردود مكية مدينة ضايف صومين ضايف ويتسلق لها مركب وبعثوها خمسك وحي أدرن لعبد العزيز عبد العزيز بأدرن فقرروا ويسوغان فقرروا ولاية عثمان للطائف عبد العزيز معها عثمان بن مضايف بوحودي بي مدحني مضى ضايف واستعمله أميرا عليها وعلى الحجاز حجاز ودنا أسوه مدحو قدق وحولاية هي مركي أرنتها سدعادي يا حجاجتي كاتمد شام إيو مصر ayaa waxay dheen waraan dagaalano nimankan muxuu ahaa aan ka dhicin xaramka Ilaahay xarameynka ka dhicin markaas wuxuu leeyahay way iskhilaafeen garabkooda laga baxay wayna noqdeen way carareen haye thumma inna sacuud baa'iya wal muslimiinti la socotay ayaa raxalu waxay ka soo rarteen min al aqiiq bay ka soo rarteen wanazalu al maghasil meesha maghasil ayaa degan fa haramu minha bay ka soo xarmeen bi umra ودخل sacuud ba soo galay makkah واستولى عليها وكقال من نقض واقف صدي وأعطى أهلها الأمان بوسي وبذل فيها وسي ودي من الصدقات والعطاء لأهلها شيئا كثيرا فلما فرغ السعود والمسلمون مركا فارغين من الضواف والسعي كل الضواف كي سعي عمرضي أي فارغين يا فرق وكل جاي سعود بن عبد العزيز أهل النواحي تتك أهل النواحي أيوكل جاي يهدمون القباب التي بنيت على القبور waxa alla wixii qabri ma qubad ka taagneed oo dhan iyo kuwan ka taagneed baa in la dumiyo ilaan ku taariikh islaamka waxay dhigaysaa hal qabri oo dhagax saaran yahay ka tag waa ma kamid la duminaya fa aqama fiha akthar min 20 yawma 20 maalmood bay maka deganaan inta qubuurta la duminay 20 maalmood oo nin maka soo dumiyay qubuurteedii oo shuhada Uhud soo dumiyay oo Daa'if soo dumiyay Soomaali hadda waxay ka rabtaa إنه قبر أنتوا أركب محا وتاجناد راح نهدي رقم وين هذه هي تاريخ الوهابي والله في المسلمون في تلك القباب 17 يوم يهدمون يبا وحود المسلمين ووهابية دي صدح يطمن مع الموت بمكة كنا قاعدين أيوة قبور تدمن هاي يباكرون أيوة كلها إلى هدمها كل يوم وليل واحد إلى حد يتقربون قبر روح مثل قبر كيف على الدمن إلهي بأن الله دوان هيا وعجائب متى waxaa ka sii daran waxa lagu magacaabay Abdul Aziz buu leeyahay Mahdi Zamanihi baa la oran jiray zamankii uu joogay Mahdigiisi ayaa loo bixiyay Maxamed bin Qama bin Bashir wuxuu leeyahay ذكر لي شيخنا القاضي عثمان بن منصور baa wuxuu sheegay أن رجلا من سراق العرب nin tuugadii reer baadiyaha kamida ayaa wajada wuxuu helay canzan وحر ضالة ودون تفير مال النفوذ السر المعروف في نجدة بورها نجدة بعاد كان نجدة كلهم طي أيقو قاعد جايسن
markaasaa saddex nin bay ahaana waxay yidhaheen wanima yaho aan naf baan nahaye aan cunna waxarta nin walba adu wuxuu yidhi cun adu cun nin walba wuxuu yidhi cabdilcasiis baa idilahaya oo muxuu ahaa muxuu ii qaban haya muxuu ahaa maxkamadii saarhay wuxuu leeyahay sanada cabdilcasiis joogay waa sanadii wuxuu yidhi xujaajtii iyo safarkii muxuu ahaa hataa laga tagay oo loo keeni jiray buu leeyahay cabdilcasiis maxaa loo keeni jiray جبات الغنائم والزكاة والأخماس وجميع أهل الأسفار يأتون من البصرة وعمان وبلاد العجم والعراق ملك كستال لوغي إما جرى غنيمة دي زكاة لوغي كان جري عبد العزيز وحولايا هاي أو مدى كفا سيدارا أوي كربلاء ما حكو دعي كربلاء انتي سوى قالين أو يمدين يان حتى قبر ير حتى لقمتك حتى قبر ير oo nool Karbala loogama tagin wax alla wixii dhaqaaqa hayna waa la dilay wixii hantideeda haydo dhanna waa la qaatay ayadana insha Allah halkaas waxaan ku yar istaagaynaa qaybta koobaad oo cinwaanul majdi fi taariikh najd ninka maxamed bin bashir laya an-najdi luqdad muqtadafaad yar yar oo ka soo qabanay waliba in badan waa noogu dhiman tahay qaybta labaadna waxay noqon doontaa kashfu shubahaat oo maxamed cabdihab kitaabku iska lahaa insha Allah ta'ala يا كتاب كتبتها وهابيد ugu weyno addurar saniyay la yaasana muqtadafadan ka soo goran doona insha Allah ta'ala